Waxa uu ku dhashay dalka Philippines, waxa uuna ka dhashay qoys ka soo jeeda dalka Talyaaniga. Waxa uu dhameeyay jaamacaddii, waxa uu noqday shakhsi xayeysiiya dharka moodalka, iyo waxa uu kale u ahaa jilaa. Waxa uuna u bartay nolol raaxo leh oo aan lahayn dhibaato. Waxa uuna ku fikiri jiray inuu gaaro guusha. Qofkaas aan ka hadlayo waa Eric Diaz. Waxaa duufaan ka dhacday dalka uu ku dhashay ee Philippines oo ay goysay korontadii. Waxa uu go'aansaday in dadkaas dhibaataysan oo wax u qabto. Eric waxa uu go'aansaday in dadkaas dhibaataysan noloshooda qiimo u yeelo, maadaama nolosha bini'aadamku ay qiimo leedahay. Waxa uu go'aansaday in dadkaas mugdiga oo ka saaro. Wuxuu iskaga tegay shaqadiisa, wuxuu bilaabay inuu xal raadiyo. Waxa uu helay ugu dambeyntii xal. Caaga biyaha ayaa laga soo saaraa iftiin. Qof walba waxaa loo diray qayb ka mid ah jiingad ama bir. Dhexda ayaa laga duleelinaa, caaga ayaa la gelinaa, kadib waxaa lagu shubaa kaloriin iyo biyo. Kadib markii qoraxda ku dhacdo, iftiin ayuu bixinaa. Waa fikrad fiican, hawl fudud, qof walbana oo samayn karo. Eric fikirkaas ayuu la yimid, waxa uuna la aaday dalka Philippines. Waxa uu sameeyay hay'ad samafal ah, waxa uuna u bixiyay Letter of Light. Waxaa fikirkiisa ka faa'iiday dad badan oo ku samaysteen guryahooda. Eric markii uu arkay in fikirkiisa oo hirgalay, waxa uu la aaday dalalka Hindiya iyo Bangladesh iyo dalalka qaar oo ka mid ah qaaradda Afrika. Waxa uu sameeyay muuqaalo ku saabsan qaabka loo sameeyo fikirkan. Waxa uuna soo geliyay barta YouTube-ka si looga faa'iido. Waxaa jira wadamo qaar oo ay leeyihiin tuulooyin aan gaarin qadka. Tuulooyinkaas asiga ayaa u tagayay, asaana gaarsiinayay. Waxa uuna ku guuleystay Eric abaalmarino badan.